Dhexda biyaanaha aad arkaysaan ayaa habeen hore waxaa iska soo tuuray gabar Soomaaliyeed degmada waa bari ee ka tirsan gobolka Banaadir maahan markii ugu horeysay oo shakhsiyaad wiilal iyo gabdho ka kooban iska soo tuuraan dabaqyo ama gidaaro dhaadheer buundooyin iyo waxyaalo la mid ah qaarkoodna ay isdaldaleen lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa walow loo sheegay qaarkood inay tahay arrimo la xiriira dhanka jacaylka qaarkoodna nolosha ku cuslaatay iyo cadaadis xoog leh ka soo wajahay dhanka qoysaska sidaas darteed ayaa loo aaneynaya run ahaantii gabadhan xilliga ay soo tuureysay dad badan ayaa goobta isugu soo xoomay qaarkood waxay doonayeen inay badbaadiyaan ereya ay ku dhahayeen hayso soo tuurin ka joog arintan waa arin halis ah hase yeeshee arintaasi dhag jalaq uma haysiinin waa ay soo tuurtay halkaasna waxa ka soo garay dhaawac aad u daran oo goobaha isbitaalada ayaa loo cararay dad badan oo goobta ku sugnaa ayaa muuqaalkan ka warami doona idilaantiin ku soo dhawaada dadka deegaanka oo xilliga ay gabadhu soo tuureysay goobta ka agdhowaa ayaa waxa uu goobjoog uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo sababta ka dambaysa in gabadhu ay soo tuurto wallahi sida wax u dhaceen aniga meeshan wax ka shaqeynaa family horta si halay lagu sheegay gabadha meeshan isku soo tuurta la halkaan ku soo dhacday qaabka isku ridii la hadal lama fahmayo ina aran family tahay ina aran oo idin jecel tahay labadaas la hadal lama sheegi karo ilaa gabadha la doonaa nooshan dhinta ina sheegi karin taas ma cadeyn karno family aniga meeshan ku shaqeynaa meeshan shaqadaan ay tahay wallahi taas family taas aniga ma sheegi karin meesha markii goob ciidan ay imaaday isla markii meesha waa loo kalkaaymo say wax ku ogaanayad waa inaad aran ugu darabtaan wallahi gabadh ambalaas loo qaaday gabadha ambalaas loo qaadayna oo ayda isbitaal loo qaaday in kal ma sheegi karin taas sidii afku badan yahay oo meesha laga sheegayo gabadhina halkaas soo istaagtay meesha baraha oo dharka muujeeda in halkaan ay soo deysay wallahi gabadh horta gabadh gaawan waaye gabadh kasto adii oo xilib leh waa oo kale in ay soo dhacday ay soo ridii aran family ay tahay aran jecel tahay laakiin lamadaas mid ma sheegi kar gabadh shaqaale guriga shaqaysa oo taliya magaalada Muqdisho ayaa horey waxa uga dhacay